hay'adda dhowrista tayada ay u xilsaaran tahay baadhista hubinta iyo ilaalinta tayada agabka dalka soo gala iyo ka dalka laga soo saaro iyo ka lagu isticmaalaba waxa aanu cilmi baadhis ku soo sameynay 5 ama 6 maado ee aan soo akhriyay annagoo ka duulayna researchkii media-kana laga hadlay la yiri dalka Soomaaliya ama dalka cuntada ay Soomaalidu cunto waxa laga helay mycotoxins aad u badan waxaanu halkan markaa ku haynaa natiijadii aan ku soo baadhnay annagoo oo ku soo baadhnay dalka dibadiisa dalka Imaaraad ku soo baadhnay lab aan hubno tayadeeda iyo aqoonsigeedana aan ku kalsoonahay ku soo baadhnay kana soo baadhnay 5 aflatoxin oo kala duwan sida ku cad research ama cilmi baadhista aflatoxins kaas oo iyagu si kala baxa oo mid waliba ay leedahay magac khaas ah waxaana ka dhasha muxuu ahaa bacteria ku dhalata muxuu ahaa alaabtan aflatoxins kaasi marka waxay leedahay limit oo heertayeed ah limitka marka inaanay dhaafin waxaanu markaa natiijadii aan idin la wadaagaynaa inta shay aan soo sheegay ee ah cuntada aynu cunno ee qamandida garowga heedda ka kooban natiijadii soo baxday waxay ahayd intii oo dhan in wax dhib ah iyo wax aflatoxin ah oo aan ku aragnay aanay jirin marka natiijadii waa taas weeyaan waxaananu ka qaadnay suuqa Hargeysa ee alaabtan laga iibsado taamicinaheedu ma aha inaanu halkaa ku joojinayno annaga iyo wasaaradda beeruhu waa ka shaqaynaynaa sidii aanu baadhis joogto ah cuntadan iyo wixii la midaba ee dalka gudihiisa lagu cuno ama la keenaba aanu ilaalin lahayn tayadooda waxaanu markaa aanu doonaynaa mujtamaca Somaliland cilmi baadhista Muqdisho lagu sameeyay ee annaguna aanu baadhista ku sameynay Hargeysa in aanay khusaynin innaga cuntadeenaas aanu soo baadhnayna ay tahay cunto wax dhibina aanu ku jirin waxa muddadii u dambeysay muddo kooban inaga xito runtii waxay dawladda Soomaaliya aynu jaarka nahay ay magaalada Muqdisho iyo bakaaraha ka qaaday saambalo bakaaraha dhexdeeda ka qaaday saambalo muxuu ahay raashinka dalka ka soo go'a runtii ay sheegeen inay xanuun keeneen markii aanu taa ogaanay waan la wadaagay runtii gudoomiyaha dibadna waxaanu sidee baynu markaa inagu maadaama Soomaaliya laba dawlad baynu ku kala nahay iyagu haddii xanuun ku sheegeen dhulkoogii ama raashinka waddanka ka soo go'ayay Soomaaliya nu jaarka nahay dadkanu way sheekeeyaan waxay soo inta waxaan marun baa soo abeen dibadna waxaanu go'aansanay in anaga iyagu ay hay'addu aanu ka wada shaqeyno inaanu saambal ka qaadno wixii dalagii dalkeena ka soo go'ay waliba waxaanu saambal ka qaadnay dalagii sanadka soo go'ay iyo kii sanadkii horeba soo go'ay baanu saambal ka qaadnay dibadna waxaynu u dirnay caalamka meeshii aan Imaaraadka loo diray muddo badan baan runtii sugaynay oo muxuu ahaayay in jawaabta aanu helno si aan bulshada ula wadaagno in waxa dalkeena ka soo go'ayaan waxaanu ku jirin waxyaabaha runtii aynu saambal ka qaadno waxa mid ah gelida oo laba nooca taas iyo cadaanka qamadiga oo dalkeena imkan soo saarnaa saambal laga qaaday oo laba nooca waxa laga qaaday gorowga oo isaguna laba nooca waxa laga qaaday heedi oo iyaduna muxuu ahaayay saambal laga qaaday inta shay ee dalkeena aynu ka qaadnay saambalkiisa aanu u dirnay waddanka aynu jaarkana Imaaraadka waxa Ilaahay mahadiye in muddo aanu sugaynay kooban jawaabta inaynu helno maalin walba gudoomiyaha waanu ka wada hadlaynay halka wax marayaan saaga runtii xafiiska igu yimiday wuxuu i tusay dhugmadkii natiijadii soo baxday in haba yaraatee raashinka waddankeena Soomaaliland ka soo go'ay aanu xanuunka Soomaaliya lagu sheegay ay dawladda Soomaaliya bakaaraha ka qaaday raashinkeega ayna inagu shaqo ku lahayn